waata asxaabta waxaan maanta joognaa magaalada Muqdisho waxaan uga soo duulnay magaalada Hargeysa oo aan u nimid magaalada Muqdisho si aan idiin soo gudbino idina tusno warbixin cajiib ah iyo sheeko cajiib ah runtii waliga dhiirigelisay oo ku saabsan hal abuurahan da'da yar ee Cabdixakiin oo ah maamulaha iyo aasaasaha shirkadaha Hadid Industries Group. Cabdixakiin oo ah aasaasaha shirkadaha Hadid Industries Group ayaa mid raba inuu ka rumeeyo hamigiisa muddo aad u badan tanina waa sababta ka dambaysa inuu aasaaso shirkadahani. fikraddan waxay runtii igu dhalatay markii aan dhameeyay secondary-gaba ayaan go'aansaday inaan noqdo qof ku soo kordhiya dalka oo aanan noqon qof shaqaale ah. Arrintaas in badan bay ku haysay waxaan baarbaaray fursadaha dalka ka jira marka waxaan ogaaday fursadda dhismaha inaan ka faa'iideeyo arrintaas halkaasaan ka soo bilaabay meel hoosaan ka soo bilowsan kaaga sheekeeyay maantana alxamdulillah meel wanaagsan bay maraysa 4 qof oo shaqaale ku bilownay maantana 100 wax ka badan ayaa ka shaqeeya waana ilaahay caqabadahan ayaa waxay ka mid ahaayeen kuwa uu la kulmay Cabdixakiin intii uu ku guda jiray aasaasidda shirkadahani oo ka bilaabmay wax aad u yar sanada ka hor qiyaasi kartaa markaad kaliya tahay wax maxay dhahdaa investment aadan haysan wax walibana ay waxay u baahan yihiin inay investment ku dhaqaaqaan marka fikraddii ayaan wadnay oo haynay adeegiina maxay dhahdaa dadku u baahnaayeen markasta adeega ay u baahan yihiin wuxuu u baahan yahay in qalabkii la helo shaqaale la helo dhaqaale kale guriyihii lagu koreeyo la helo alxamdulillah laakiin iyadaan isku korino waa ka gudbin arrintaasna alxamdulillah shirkadahani waa asaasay hal abuurahan da'da yar ee Cabdixakiin ayaa haatan waxa ka shaqeeya shaqaale gaaraya 150 qof kuwaas oo u badan dhalinyar Cabdixakiin ayaa haatan waxa uu yahay mid rajo weyn ka qaba mustaqbalka dhow 10 sano aan soo dhamaynay 10 sano ee soo socda ama 5 sano ilaa 10 sano ee soo socota hami wanaagsan baan leenahay oo aan aad iyo aad u rajaynayno in shirkadu halka ay joogto ay ka tagto oo aan u wareegno inaan industry maxay dhahdaay industry-gan aan ka shaqeyno ama qaybtan aan ka shaqeyno aan gaarsiino horumar waaweyn ama guulo la taaban karo waxaan aad ugu rajo weynahay in waxyaabo badan hadda banaanka laga soo dhoofiyo oo dalka loo soo dhoofiyo inaan ku samayn doono dalka gudihiisa haddii alla idmo sida u jeeday marka kuraastaad arkaysay waxyaabahan annaga agabkan meesha ku qalabaysan oo dhan inta ugu badan annaga samaynay waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala sidaa si la mid inaanu ugu samayno dadyaga kalena haddii la yiraahdo sidoo kale warehousada imka dibadda laga keenaa kuwana local baan ku samaynaa marka waxaan doonayaa in arrintaas iyadana laga maarmo 10 sano ee soo socoto aanu dhamaanteed warshadihii lagu sameeyay aan dalka keenno dhanka kale Cabdixakiin ayaa waxa uu aasaasay dugsiga farsamada gacanta ee Bin Daawud si uu dhiirigeliyo farsamada gacanta maadaama tan ay ka mid ahayd caqabadu Cabdixakiin la kulmay markii uu aasaasay warshadani soo saarta agabka xadiidka iyo naqshadeyntoodaba taasi oo u baahnay farsamada gacanta farintani ayaa uu la wadaagay Cabdixakiin dhalinyarada jecel wax soo saarka iyo hal abuurka ganacsiga runtii horta dhalinyarada waxaan u sheegaynaa inaanay isdiibin iyo tabin dalka fursado way buuxaan very fortune way dalka oo dhan uu dihin yahay meel kasta ama lagu jiro ama laga maqnaadee shaqadu way bannaan tahay fursado way furan yihiin kaliya waxay u baahan tahay qofku inuu hami leeyahay maxay dhahdaa go'aan qaato maxay dhahdaa fursadana uu hore uga faa'iideeyo waxaan kaloo aad ugu la talinayaa dhalinyarada in ay bartaan xirfadaha dalka aad bay u bannaan yihiin waxa weeyaan annaga caqabsan ku sheegay hore ku sheegay caqabadaha nala kulmay waxa ugu weynayd ama ilaa hadda ugu weyn waxay tahay in xirfadlayaal aan la helin marka waxaan kula talin lahaa in dadku ay xirfadda bartaan shirkadahani waa asaasay Cabdixakiin ayaa waxay ahaayeen kuwa ka bilaabmay hal mid 13 sano ka hor balse haatan waxay yihiin in ka badan 4 shirkadood kuwaas oo isugu jira warshadaha soo saara agabka xadiidka aluminiumka iyo naqshadeyntooda arrinta kale cajiibka ayaa iyaduna waxa ka mid ah ayuubhaan aad ii dhiirigelisay in hamigii Cabdixakiin 10 sano ka hor uu lahaa aanu maanta dhexdiisa joogno saadooda arkaystaan fooqana joognaana waxa weeye xaruntii guud ee shirkadda oo ah mid ka samaysan guud ahaan steel structure maadaama hamiga Cabdixakiin uu ahaa in steel structure-ka uu horumariyo guud ahaan sidoo kalena uu ka horumariyo deegaanada Soomaalida
badi bulshada kalama uu kulmin dhiirigelin Cabdixakiin markii uu aasaasay shirkadahani balse muhiimadda ayaa waxay tahay inaan marnaba ka joogin hamigaaga runtii waxaan dhihi karaa anoo meel ka shaqeeya ayaa waxaan go'aansaday inaan shaqadii joojiyo duruufo markaa shaqada ka jira awgeed wax allaaleeyo waxaan meel ku ogaana ma jirin marka xirfadan baan aqaanay iyo inaan shaqaale iyo wax isu keeno oo hamigeygana ahayd runtii dadku ila yaabana waxa war ninkaaga shaqada ka tagayee maxay dhahdaay maad shaqo kale raadsatid anna go'aankaygu wuxuu ahaa inaan shaqaalanimo dambe aan ku noqonay aan hamigaas kaga rumeeyo barnaamijkani waa uga duwan yahay dhammaanba barnaamijyadii hore waxaana uu yahay mid Ayuub ahaan si gaar ah xiise gelinaya maadaama wax ku dhow 2,000 kiiloomitir aan uga imi si aan ula kulmo Cabdixakiin sheekadiisu runtii aad ayay dhiirigelisay adigana waxaan filayaa inay ku dhiirigelin doonto Cabdixakiin aad ayaad mahadsantahay ku xidhno Ayuub soo lana socon muuqaal dambe oo cusub insha Allah